gabadhan yar maxaa ku dhacay iyadoo wejiga dhaqanaysa ayay waxay aragtay calaamad wejiga ugu taalo muraayad ayay imaatay kadibna waxay aragtay inay isbedelayso waxay isu bedelaysaa digaagii oo kale kadibna digaag toos ayay noqotay saaxiradii ka dambeysay waxaa socatan halkan ayay joogtaa waxayna isugu yeertay dhammaan sixiroolayaal kaloo fara badan halkan waxay ku sameynaysaa bandhig daawadan awdajidan waxay u isticmaashaa inay caruurta ugu dhigto dooli ama jiir sida u taqaanaan haddana wiil yar ayaa meesha soo gal wiilkii yar ayaa sirsirta waxayna tira shukulaata ayaa ku siinaya balse daawadii ayay siisay cunugin wuxuu isku bedelay dooli kadibna waxay tiri soo qabta oo dila wuuna ka cararay ayagoo dil rabaan waxaa kasoo badbaadinaya dooligan kale oo yar dooligan mar uu asigana bini aadan ahaan jir balse ugu dambeyn cunugii meesha ku dhuwan ayay soo qabtay waxayna dhegta ugu shubtay daawadii asigana wuxuu noqday dooli kadibna waa ay qabteen ayagoo dil rabaan ayaa waxaa ka badbaadiyey jirkii kale ee yaraa ee caddaa sidaas ayayna saddexdoodii kusoo badbaadeen waxayna soo galeen meesha aar conditionka soo maro saaxiirada gacmaheedan aad ay ugu dhadheeryihiin balse ugu dambeyn ay ka fagteen ayagoo yaaban ayuu midkii wuxuu ka yiri soo baxaan aadina guriga hooyadeey sidaas ayayna kusoo baxeen guriga ayayna balse shaqaalihii hoteelka ayaa iskoobala dabagacay ugu dambeynna guriga ayay galeen islaantii guriga degneedna waa ay xabsatay balse jiirkii yaraa oo hadlaya u sheegay inuu yahay wiilkeedii oo isbedelay kadib markii la siiyey waxyaabo sixir ah wixii wax kamid ayay kasoo xadeen saaxiradii halkaas ayay usoo qaadeen way la soo carareen ugu dambeynna waxay keeneen guriga si ay u diyaariyaan oo ay cuntada ugu daraan wixii ayay sameeyeen haddaba ay sameynayaan waxayna rabaan inay ka aargutaan naagtii saaxiradda ahayd ugu dambeyn waxay ogaadeen inaysan ayaga sidooda hor kusoo noqon karin balse maraqii ay cabi lahayeen qolihii saaxiriinta ayay daawadii ku wada dareen halkaas ayayna dhammaantood isugu bedeleen dooli kadib saaxiradii weynad ayay soo hartay iyadoo naagtan disho ayay u keeneen berihii suulka ay markay qaylisayna daawadii ayaa afka loogu shubay sidaas ayayna ku noqotay jiir aada u weyn oo xoog badan balse ugu dambeyn waxaa dhacay halkaas ayaa lagu qabtay bisadeedii ay soo korsan jirta ayaana ku quraacatay filinkiina halkaas ayay ku dhaamaa.